sheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo jeedatay dalxiisyaal iskugu jira Soomaaliya iyo Jaanib waxaana socda dadaal magaaladaas looga dhigay goob dalxiis wariyaheena Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkaasna inoo faahfaahinaya degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah meel taariikhi ah oo ay ku yaalaan goobo qadiimi ah sida masjidkan Sheekh Abi Kirey oo dhisnaa in ka badan 200 oo sano waxaana sanadihii dambe soo jiitay dalxiisayaasha Soomaaliyeed iyo ajaanibba taasoo ay u wacan tahay xeebta ku dheerarsan iyo jawigeeda quruxda badan waxay kulansatay deegaankii xoolaha beeraha kalluumeysiga iyo inay u dhowdahay caasimada dalka waxayna ka mid tahay magaalooyinka dawladda Soomaaliya u diyaarinayso inay noqoto meel dalxiis oo dalka dakhli badani uu ka soo galo Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi waa agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay ujeedada ay u tageen halkaasi sidaad aragtaan maanta waxaa assessment ama booqashooyin aan ku imaanay degmada Warshiiq oo 60 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho assessmentgeena wuxuu iskugu jiraa cilmi baaris annagoo booqanayna goobaha kala duwan ee taariikhiga ay ku tahay degmada Warshiiq waxay ahaa jirtay xarun diineed oo culumta diinta islaamka looga soo xeereysan jiray gobolada dalka iyo wadamada shisheeye sida uu sheegay gudoomiyihii hore degmada Warshiiq Axmed Xuseen Axmed Shiidka magaaladu waxay caan ku tahay diinta waa meesha laga fidiyay diinta xilligii dawladda kacaanka waxaan ognahay inay joogi jireen Oromo oo diinta baranayso Afar diinta baranayso Tigray diinta baranayso ay joogi jirto ay Afrika Tanzania laga imaajir diinta laga baran jiray degmadu waxay caan ku tahay horumarinta diinta nolol maalmeedkeeda degmadu waxay ku xiran tahay kalluunka iyo idaha testaneeraha oo aragteen oo barjidka soo soconayba iyo beeraha degmo kulansatay waa saddexdii nolol beeraha kalluunka iyo xoolaha haddana waxa ku soo kordhay dalxiiska Cabdirasaaq Xuseen Axmed oo ku magac dheer Shiino wuxuu ka mid yahay qurba joogta Soomaaliyeed ee nasiibka u yeeshay in dalxiis uu ku tago degmada Warshiiq waxaana dawladda Soomaaliya ku amaanay sida ay u heelan tahay horumarinta dalka sidoo kale wuxuu Soomaalida ku nool dalka dibadiisa ku dhiirigeliyay inay dalkooda ku soo laabtaan waxaanu ilaahay mahadiisa ka sokow aan u mahad celinayaa gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska gaar ahaan qaybta dalxiiska oo aad noogu magaranaysa caawintay wareejinta iyo meelaha soo tusaysay iyo sida ay dadka ajnabiga soo dhaweynta iyo intaasi ay u sameynayaan yaani waa shay aad loogu farxo lana dareemi karo Soomaalinimada asalkeeda waxa ay tahay inaanu arki karno qurbaha badii aanu yaani dadka ay sameysteen mid ka fiican inaanu haysano laakiin ay dadkeeda u baahan tahay marka dhammaan waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska yaani hawsha ay ku jirto baraarujinta ee Soomaalida inay u baraarujiso Axmed Xuseen Axmed Shiidka gudoomiyihii hore degmada Warshiiq waxa uu kaloo sheegay in mashaariic kala duwan ay ka socdaan haatan degmada kaasi oo qayb ka ah sidii loo soo dhaweyn lahaa dalxiisayaasha ceelka Riiga ayaa isagana kan ku dhamaado ku xigsan doono oo biyo macaan ah oo waa 3 mashruuc oo isdaba joogtay oo ahaa muxuu ahaayay solar systemkii oo koronto cadceed waa meesha ugu horeysay Soomaaliya laga hirgeliyay ay noqotay Warshiiq iyadana ceelkii biyaha ku xigo kadibna wadada ayaa ku xigtay waa la yiraahdo haddana waxaan xoog saaraynaa oo socdo kalluumeysiga agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi ayaa xusay in wasaaraddu ay ka go'an tahay horumarinta goobaha dalxiiska ganacsatada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay maalgashadaan dalkooda hooyo dawladda Soomaaliya wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska mar walba waxay u heelan tahay ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashtaan wadankoodii hooyo sida aragtaan waxaan leenahay xeeb aad iyo aad u qurux badan oo lagu magacaabo badweynta Hindiya waxaan rajaynayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan xeebtan quruxda badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay u soo dalxiis tagaan caruurtooda iyo ayagaba ay ku dalxiisaan sidaas